ganacsataan gabdhaheena iyo wiilasheena yararna ay ka ganacsadaan hadda bilaabanaysaa waa November 29 2019 waa jimcihii la soo dhaafay hadda 29kii bishii 11aad ee sanadkan hadda aan dhammaan gabagabada ah subax hore aroor ayay ahayd subax jimco ah salaada subax ayaan u soo kacay waqti hore anigoo isku diyaarinaya salaadii waxaa aad ii wareeriyay telephone layga soo wacayo Snapchat call ayaa laygu soo wacay muddo 20 jeer ayuu qofkii ku soo ceshay mar walba aan ku damiyo ama aan ka qaban buu ku soo celinayaa fartiin ayaan u qoray markuu qofkii telefoonka joojin waayo waxaan ku eray ama cod ii dhaaf ama fartiin ii soo qor hadhow baan kugu soo celinayaa waxaan ahay mashquul daqiiqad kama soo waraagin markuu uu qofkii ii soo qoray qoraalka halkan inay ka muuqda waana sida uu qoraalkiisa ku bilaabay Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa ku salaameynaa walaashay waxaa tahay gabar firfircoon dad badanna ay ku xiran yihiin runtii waxaa tahay qof wax badan qaban kartaa bulshadana waxyaabo badan u gudbin kartaa waxaan ku haynaa fursad ganacsi oo aad u fiican aad ku sameyn kartid lacag badan adoo gurigaaga jooga waxaanu ka rabnaa maadaama dad badan ay kugu xiran yihiin in aad fursadahan ka faa'iideysatid waxaana deegaamo iyo xurumo ku leenahay Afrika qaasatan Soomaaliya waxaana doonaynaa inaan kugu casino ganacsigan fursadana adiga ayaan ku garanay walaashayna la soo xiriir halkan fartiin noogu soo dhaaf inta inuu iska baranaynana qoraalkeena ama fariimaha ina dhexmara qofna hala wadaagin waa qoraalka ay ii soo qortay gabar ayay ahayd kadib waxaan ku eray waan ku soo dhaweynayaa fursadda ganacsi ee heshadna waan ka qayb qaadanayaa soo dhawow walaashay tell me more iisha ganacsigaaga iyo waxa uu yahay anigu laftigaygu waa ganacsadaa yaa diidaya fursad ganacsi oo kaftana ayaan u qoray sheeko dheer ayaana dhex martay codadkeeda ayaa aan maqashiin doonaa iyo iyada oo hadlaysa oo ganacsigeeda ii sharaxaysa koorintaana gabadha codkeeda iyo sheekadeeda ee maqashiin iyo su'aalihiina dhex maray waxaan doonayaa wax yarina inay ka sheego dadkan waxa ay yihiin dadkan waa dad Soomaaliyeed oo walaalaheen oo kala ah waliba waa dad u badan dumar Soomaaliyeed waa dad bulshada Soomaaliyeed dhexdooda jagooyin ka soo qabtay haddana ganacsato ka ah Soomaaliyana laga yaqaano laakiin shaar kale ay ganacsigan marka ay fulinayaan ama ay sameynayaan ay soo gashtaan waxay ku nool yihiin gabi ahaan Soomaaliya oo dhan meel walba ay ka joogaan dadka waxay ugu sheekeeyaan waxaan ka gadaynaa xubnaha jirkaaga waxaana ku siinaynaa lacag u dhaxaysa 100,000 ilaa iyo 50,000 oo dollar hadii aad caafimaad qabtid kalidaadu da'daada caafimaadkaaga ayay ku xiran yahay qiimaha xubnaha jirkaaga laga siisanayo jirka xubnahaaga oo dhan ayaa loo baahan yahay gamcaha lugaha indhaha ilkaha beerka kaliyaha wadnaha iyo waliba dumarka jira 15 sano ilaa iyo 35 sano ilma lagu abuuranaya waxa laga saxiixaya contract 2 sano ina ayaga la joogisid inta cuniga aad ka dhalaysid lagu abuuraya hawshaas oo la qabanayo kadibna hadda marka cuniga aad dhashid shaqo kale ayaa laga qabanaya dadkan ganacsigan marka ay sameynayaan waa dad qarsoon weeye dad Soomaaliya inagoo kalena waaye oo walaalaheena laakiin dadka ka dambeeya oo ganacsigan maalgeliya ama sameeya waa dad ajnabi ah oo caalamka ka imaaday laakiin Soomaaliya gudaheeda dad ka sameeya waa dad Soomaaliya oo waliba dumar ah gabadhan waxay tiri oo hadaladeeda ayna maqashinaya kamida xubnaha jirka ayaanu iibinaa dadka waxaan ku soo qalnaa oo geynaa Ethiopia iyo Kenya laakiin taasi waa been xubnaha jirka waxa lagu soo qalaa badda dusheeda markab saaran ayaa lagu geynayaa oo Soomaaliya jooga hadba meel ayuu ku xirtaa markabkaas qofka marka la kaxeeyo deegaanada Soomaaliya tuulooyinka iyo gobolada iyo caasimadaha Soomaaliya iyo dadka laga ugaarsadaa ilmaha waa la xadaa gabdhaha yar waa la qaadaa wax kasta qofki waa la waayay waa dhintay ma ogid laakiin halkaas ayaa la geeyaa markabka dushiisa lagu qalaa qofka wixii la rabaa laga la baxaa kadibna badda ayaa lagu tuuraa sheekadan businesska ayaa jiro oo Soomaaliya ka socdo anigan in la hadlayo ay qofkaas ama dad kamida qofkaas ila soo xiriiray xiriirkiisa iyo sheekooyinkiisina sidan ayay noo dhaxmareen koorintaana gabadha codkeeda iyo sheekadeeda ee maqashiin iyo su'aalihiina dhexmaray waxaan doonayaa wax yarina inay ka sheego dadkan waxa ay yihiin dadkan waa dad Soomaaliyeed oo walaalaheen oo kala ah waliba waa dad u badan dumar Soomaaliyeed waa dad bulshada Soomaaliyeed dhexdooda
jagooyin kasoo qabtay haddana ganacsato ka ah soomaaliyana laga yaqaano laakiin shaar kale ayay ganacsigan marka ay fulinayaan ama ay sameynayaan ay soo gashtaan waxay ku nool yihiin gebi ahaan soomaaliya oo dhan meel walba ayay ka joogaan dadka waxay ugu sheekeeyaan waxaanu kaa gadaynaa xubnaha jirkaaga waxaana ku siinaynaa lacag u dhexaysa 100,000 ilaa iyo 50,000 oo dollar haddii aad caafimaad qabtid kalidaadu da-daada caafimaadkaaga ayay ku xiran yahay qiimaha xubnaha jirkaaga lagaa siisanayo jirka xubnahaaga oo dhan ayaa loo baahan yahay gamcaha lugaha indhaha ilkaha beerka keliyaha wadnaha iyo weliba dumarka jira 15 sano ilaa iyo 35 sano ilmaa lagu abuuranaya waxaa lagaa saxiixayaa contract 2 sano ina iyaga la joogaysid inta cunuga aad ka dhalaysid lagugu abuuraya hawshaas oo la qabanayo kadibna haddii marka cunuga aad dhashid shaqo kale ayaa laga qabanaya dadkan ganacsigan marka ay sameynayaan waa dad qarsoon weeye dad Soomaaliyo inagoo kalena waaye oo walaalaheena laakiin dadka ka dambeeya oo ganacsigan maalgeliya ama sameeya waa dad ajnabi ah oo caalamka ka imaaday laakiin Soomaaliya gudaheeda dadka sameeya waa dad Soomaaliyo oo waliba dumar ah gabadhan waxay tiri oo hadaladeeda ayna maqashinaya kamid ah xubnaha jirka ayaanu iibinaa dadka waxaanu ku soo qalnaa oo geynaa Ethiopia iyo Kenya laakiin taasi waa been xubnaha jirka waxaa lagu soo qalaa badda dusheeda markab saaran ayaa lagu geynayaa oo Soomaaliya jooga hadba meel ayuu ku xirtaa markabkaas qofka marka la kaxeeyo deegaanada Soomaaliya tuulooyinka iyo gobolada iyo caasimadaha Soomaaliya ayaa dadka laga ugaarsadaa ilmaha waa la xadaa gabdhaha yar waa la qaadaa wax kasta qofkii waa la waayay waa dhintay ma ogid laakiin halkaas ayaa la geeyaa markabka dushiisa lagu qalaa qofka wixii la rabaa lagala baxaa kadibna badda ayaa lagu tuuraa sheekadan businesska ayaa jiro oo Soomaaliya ka socdo anigan in la hadlayo ay qofkaas ama dad kamid ah qofkaas ila soo xiriiray xiriirkiisa iyo sheekooyinkiisina sidan ayay noo dhaxmareen gabadhaas su'aalo badan ayaan weydiiyay markii u horeysay waxaan weydiiyay waxay ahayd dadka marka aad kaliyahooda ka saaraysiin ama qofka aad rabtiin inaad kali ka saartaan seebaad uga dhaadhicisiin dadka ma afduubtaan dadka ma maxbaad sunnaad siisaan oo qofka miyir doorisiin sidee baad uga dhaadhicisaan in qof kalidiisu uu ogaado inuu xubnihiisa gatood ka haysataan oo waxa ku soo sameysaan waxay iigu jawaabtay sidan dhageysta wacan abay maanta khasam maahan in qofka uu la charjuumo ama la afduubto ama wax kale talugso qof walba isagoo miyirkiisa iyo wax walba taamihiin xubnihiisa laga gadanayaa wuxuu ku daboolayaa baahidiisa mid kasta ay taaba lacagtaas ku daboolaya marka abay dhima lahan waxaan wax caalamka ka jira wax soo jineena weligan baan ka soo shaqaysan jirnay aniga laftirkayga xitaa markii ugu horeysay kalibaan iibsaday alxamdulillah hadda wax iga maqan ma jiro waan ku socdaa waan ku dhalaa alxamdulillah wixii aan u baahnaana waan helay oo ii fududaadeen waxay tiri dadka ma joojoognay tiri dadka waa caadi bay tiri wax soo jirina weeyay tiri oo weliga jiray waa wax caadi ay tiri oo laga ganacsado aniga laftaydu way tiri markii u horeysay kalideeda gatay qofka baahi badan iyo lacag la'aan iyo faqri badan haduu hayana uu uga baxayaa bay tiri oo baahidiisa ku daboolaya waan ku dhalaa waa socdaa waxba igama dhimana kalidina waan gatay ayay tiri mar kale ayay gabadhan waxaan weydiiyay su'aal kale oo ah xagee baad Soomaaliya ka joogtiin xagee xurumo ku leedihiin ayaan weydiiyay waxayna iigu jawaabtay sida tan abay maanta khasam maahan way ku soo daray qofkii gobolada badan baan ku leenahay sida gobolada Puntland oo kale Somaliland oo kale koonfur galbeed oo kale Jubbaland Soomaaliya waxaan ka wada calaashan Soomaaliya ka wada federaalka oo kale meelo badan baan ku leenahay dibay baan ku leenahay waxaan ku leenahay adoo caalamka oo dhan oo ku leenahay sida Ethiopia meelaha noogu dhow oo waxyaalaha mataqaan qaliimada adag noogu fududaadaan waa Ethiopia ilaa Nairobi oo kale soo dhaqaatiida caalamka waxa jooga khatar ah iyagoo kale badan operationada waa lagu galaa mataqaan laga yaabo in Soomaaliya dib ku tahay ama dadka ku ogaadaan oo kale meelo badan waa yaabaayo laakiin ani markii ugu horeysay waxaan ka soo bilaabay Jarmalka si fiican baa uma qashana u maleynaya waxay tiri gabadhan waxaan xurumo ku leenahay tiri Puntland
soomaaliya oo dhan bay tiri somaliland jubbaland koonfur galbeed muqdisho centraalka ah meelo badan oo xormo ku leenahay dadka meelaha noogu dhow oon kusoo qalnana bay tiri waa etoobiya iyo kenya bay tiri aniguna markii ugu horreysay shaqadan waxaan kasoo bilaabay tiri jarmalka waa kaasa hadde su-aalo badan ayaa gabadhana dhex maray oo aada u fara badan wax kasta waan weydiiyey marka waxaan rabaa inaan uga digo ummadda soomaaliyeed ee videogan gaari doono haddii lahayd ma aad degeysatidna waxaan kaa codsanayaa inaad shiishar garaysid in waxyaabahan oo kale lasaga digo in lagugu dhaho baahi baa ku haysa maanta faqri baa tahay waxba ma haysatid gaajaa ku haysa si aad faqriga iyo dhibaatadan uga baxadid xubnaha jirkaaga gado lacagaan ku siino garantii ma ahan baahi kuuma geyn karto inaad jirkaaga gadatid ha ku dhiiranin maxaa yeelay qasab ma aha etoobiya iyo soomaaliya mid dadka lama geeyayo kenya dadka badda markab dushiisa saaran ayaa lagu qalaa xubnaha ee jirkan lagala baxaa kadibna baddaas ayaa lagugu darayaa hadday xitaa dhakhaatiir ku qasho oo etoobiya iyo soomaaliya iyo kenya meel kasta lagu soo qolo iyo jarmalkaba mar walba meydkaagii waa la tuuraya qashinkaa lagu daraya biyaha la raacinayaa qof kasta oo soomaaliyeed videogan gaaro waxaan ka codsanayaa inuu soo shargareeyo waxyaabaha noocan oo kalena isaga digno haddii social media lagaala soo xiriiro oo lagugu yiraahdo waxaan nahay dad noocaas ganacsi baan ku haynaa fursad ganacsi maalgelin baan ku siinaynaa dadka gaarsii warkeena xubnaha ha gateen dadku waxyaabaha nagala shaqee weligaa ha yeelin dambi iyo waxa waaye aada u weyn xubno bili-aadina ka ganacsatay risaaqadaaduna ay gasho ood qof bili-aadan nafsadiisa adigu gacantaada ku dashay dadkan waa gacan ku dhiglayaal weye dadka dhiigoodii bay caadaysteen dadkiiba raba ina baabi'iyaan meelaha ugu badan oo laga ugaasoo dowladda ka jirnin oo dadkii lagu dhibaataynaya waa soomaaliya ilmihii baa la weynayaa gabdhihii baa la waayey wiilashii baa la waayey dad badan baa ubadkoodii meelu maanta jira aan garanaynin hooyooyin badan baa meela jaani cirib dhigaan aan la garanaynin waxayna ka codsanayaa qof walba oo videoga gaaro inuu sii shargaraya haddii waxyaabahan oo kale social mediaha lagugu yimaado oo social mediaha lagaaga weydiiyo oo social media lagula soo xiriiro oo waxaan oo kale lagu soo bandhigo hataa haddii lagu dhaho maantiiba joogaago dahaba $1 million lagu siinaya waxaan oo kale ha qaadaneen waa wax aada u xun weeyaan waana wax wadankeena baabiiyo ummadda soomaaliyeed kuwa ku jirana ilaah subxaana watacaala ha kasoo hanuuniyo kuwa ku jirana ilaah subxaana watacaala ha ka saaro wax caadi ayay kaaga dhigayaan waa caadi wax soo jiri jiray adduunka dhan bay ka jirtaa anaa sameeyey anagaa sameynay dad badan baa sameeyey been weeyaan maalinka lagu kaxaysto oo lagu qaato sida rabaa lagaa yeelayaa naftaada dambe iyo adigan laguma arkaayo xubnahaagana waa lala baxayaa intaa unbay doonayaan ilaahi subxaana watacaala kuwa dadka ha ka qabto annagana ha naga qabto videoga ee rabeyna in la wadaago ummadda soomaaliyeed aan la wadaago waxaan waxa laiga sheekeeya maaha waa aniga dadka ila xiriireen kadib markaan dee dhibaato badana dhex martay su-aalo badan weydiiyeen aniga dhan waa lay bloogay awalba snapchat ka wada hadalnay way diiday inay whatsappiga la xiriirto way diiday inay telephone isiisiyo meelan kula soo xiriiro waayo su-aalahaygii ayaa iyadana waxay geliyeen shaki iyo tuhun ah maxay waxaanoo rabtaa inuu ogaato waayo waxaasoo dhan inaa shakiye ayay dareentay aniga qof waxaan kulla wixii qarsan karin haddana qof isla markiiba fahmi karta meesha dhibku ka jiro ayaan ahay alxamdulilah ilaah caqli maskaxuna siiyey aan wax ku kala garano isla markaas isa ka xirtay wax kasta inay ii ogolaatana way diida laakiin social media ayay ka dhex qaraabtaan oo qodadka ay la xiriiraan weliba waxay kugu dayayaan inay wax walba kana dhiciyaan wax caadi ah kaaga dhigaan lacago iyo maal adduuna ku jeclaysiiyaan alla iska ilaalsho haddii ilaha yiraahdo videoga sii shargareeya gaarsiiya walaalaha kale soomaaliyeed aad baad ugu mahadsantaha daawashadaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi